Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada dhammaan daawadayaasha ku xiran Misbaax Learning English. Maanta waa maalin cusub, saacad cusub iyo fiideo cusub. Waxaa baran doonaa maanta 8 eray. Erayadu marka aad luqadda baranaysid muhiim saa'id ah ayay u yihiin in aad erayo baratid. Marka eraygeena koowaad waa erayga awfal. Xaggan waxaa ku qoran eraygii, xaggan waxaa ku qoran dhawaaqdii, xagganna waxaa ku qoran macnaha erayga. Erayga koowaad waa awfal. Awfal micnihiisu waa aad u xun. Erayga labaad waa consist. Consist macnihiisu waa ka kooban. Erayga saddexaad waa desire. Desire macnihiisu waa rabid ama doonid. Erayga afaraad waa eager. Eager haddii ay kugu adag yihiin dhawaaqa erayada marka aan casharada si xiriir xagga u soo dhigno ka qoro qaabka loogu dhawaaqayo. Eager waa xiiseynaya ama xiiso. Erayga xiga waa household. Household macnihiisu waa qoyska, guriga. Erayga xiga waa intent. Intent macnihiisu waa ujeedo. Ujeedo. Erayga xiga waa load. Load. Load micnihiisu waa rarid. Rarid in aad shay qaadid ama radid. Erayga xiga waa u dambeeya waa lift. Lift waa kor u qaadid. Maanta waxaanu barnay 8daas eray. Meel ku qoro oo nood garayso kadibna u isticmaal luqadaada. Barasho wanaagsan 8daas eray. Haddii aad u baahataan erayada qaab dhawaaqooda waan u soo badin doonaa kanaalka. Kanaalkana waxaa lagu bartaa luqadda Ingiriiska. Fadlan subscribe garayso. Haddii aan hal mar soo dulmaro macnaha erayada. Erayga koowaad waa awfal macnihiisu waa aad u xun. Erayga labaad waa consist waa ka kooban. Erayga saddexaad waa desire waa rabid ama doonid. Erayga xiga waa eager waa xiiseynaya. Erayga xiga waa household waa qoyska, guriga. Erayga xiga waa intent. Intent ujeedo way macnihiisu. Erayga xiga load ama rarid macnihiisu waa rarid. Erayga xiga lift waa kor u qaadid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ma danaynaysaa daawade barashada tensiska luqadda Ingiriiska? Haddii ay jawaabtaadu haa tahay, xarunta Grammar Knowledge waxa ay ku haysaa buug aad ku baranaysa dhammaan 12 tensis ee luqadda Ingiriiska. Sidoo kale xaruntu waxay ku haysaa buugga barashada irregular verbska luqadda Ingiriiska. Haddaba haddii aad daawada danaynayso, ka soo dalbo xarunta Grammar Knowledge. Buugga waxaad ku helaysaa si PDF ah. Sidoo kale xaruntu waxa ay diyaarinaysaa buugaag kale oo isugu jira luqad iyo cilmiyo kale. Haddaba si aad uga faa'iidaysatid daawade ka mid noqo macaamiisheena cusub. Wixii faahfaahin waxaad kala xiriiri kartaa lambarka shaashada kaaga muuqda.